kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb qaatay dhaqaatiirta isbitaal Banaadir kuwaas oo bulshada la wadaagay fariimo kala duwan oo ka tarjumaya toddobaadka wacyigelinta iyo ka hortagga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis-dilayaasha oo dunida oo dhan laga xuso inta u dhaxaysa 18 ilaa 24 bisha November ee sanad walba. kadib markii la ogaaday dhibaatooyinka ka yimid si qaldan u isticmaalidda daawooyinka ay sababtay in wax ka tari waayeen cudurrada lagu daaweeyo maadaama jeermis-dilayaasha ay adkaysi u yeesheen gaar ahaan cudurrada kala ah cudurka qaaxada ama TB-da cudurrada duumada ama malaariyada cudurka HIV-ga iyo cudurro kale oo fara badan sidaa darteed xuska toddobaadka dunida ee ka wacyigelinta si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis-dilayaasha ayaa la qabtaa sanad walba isbuuca saddexaad ee bisha November halkudhiga sanadkan waa aan u midowno ka hortagga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis-dilayaasha annagoo hirgelinayna fariimahan oo soo socda marnaba ha isticmaalin daawooyin jeermis-dile oo aan dhakhtar kuu qorin ha isticmaalin daawooyin jeermis-dile qof kale loo qoray fadlan gacmahaada ku nadiifi saabuun iyo biyo inta uu jiro caabuqa safmareenka ah ee COVID. antibiyootikadu ma daweyso fayruska. antibiyootikadu waxay daweysaa bakteeriyada. isticmaal xumida iyo badashada antibiyootikadu waxay khatar u tahay caafimaadka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ah ee COVID-19. ogow jeermisyada kala duwan waxay leeyihiin daawooyin kala duwan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.